So a few years ago, I set the goal for Israel of becoming one of the top 5 cybersecurity powers in the world. قائمة الأشخاص الذين يتم التجسس عليهم كبيرة وشملت قادة دول. منظمة فوربيدن ستوريز غير الحكومية ومجلة لوموند الفرنسية أكدتا أن أرقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب و14 عضواً في حكومته كانت على قائمة الأهداف لبرنامج بيغاسوس. اللوموند أكدت أن عملية التجسس هي لصالح المغرب أو السلام عليكم. waa maxay softwareka ama barnaamijka loo yaqaano Pegasus ee wax lagu basaaso ama wax lagu jabsado? Sidee buu barnaamijkan ama softwarekan u dhexgalaa ama u hakin garayaa taleefanada? Sidee se u shaqeeyaa barnaamijkan? Muuqaalkan ayaynu kula fakuraynaa mowduucan. Haddii aad nagu cusub tahay kusoo dhawow, subscribe taabo, muuqaalkana like saar. mahadsanid. Pegasus waa magaca loo yaqaano softwareka ama barnaamijka waqtigan xaadirka ah ugu casrisan ama ugu awooda badan ee loo adeegsado arrimaha wax basaasida ee spyware, arrimaha wax lagu hakin gareeyo oo lagu jabsado taleefanada. Softwarekan ama barnaamijkan marka uu dhexgalo taleefankaaga adigoon xitaa ogeyn ama aan ka warqabin, waxa uu awood u leeyahay inuu adiga iyo taleefankaagaba 24 saacadood si joogto ah idin basaaso. Pegasus waa programmada ugu horumarsan ee wax lagu basaaso ee abid laga hirgeliyay caalamka. Ma jiro qaab la isaga ilaalin karo haddii ay damcaan xogtaada. Fikrad kasta aad lahayd iyo hawl walba oo muhiim ah waxaad ku khasban tahay inaad buug iyo qalin ku qortid. Pegasus waxay u aragtaa aalad say doonto kaa yeeli karta. Marka haddii aad u malaynaysid inaad nabad qabtid, sababtuna ay tahay inaad isticmaasho WhatsApp end-to-end encrypted call ama waxaad isticmaashaa Telegram, Signal, Facebook, Twitter, runtii micno ma lahan applicationadan mar haddii uu Pegasus ku jiro taleefankaaga. Softwareka Pegasus wuxuu awoodaa inuu koobi gareeyo oo uu gudbiyo dhammaan fariimo qoraaleedka ama fariimaha codadka ee aad dirto ama lagu soo diro. Pegasus wuxuu awoodaa inuu duubo oo uu gudbiyo taleefanada aad dirto ama lagu soo diro. Pegasus wuxuu awoodi karaa inuu koobi gareeyo oo uu gudbiyo sawirada iyo fiidiyowyada gaarka ah ee kugu kaydsan taleefankaaga oo xataa aad damisay. Pegasus waxa uu awoodaa inuu furo kaamirada ama mikrofoonka taleefankaaga, dabadeedna uu si sir ah kaaga duubo wax kasta oo aad samaynayso, muuqaal ama maqalba. Softwareka Pegasus waxa uu si joogto ah ula soconaya ama uu xaqiijinaya meel kasta oo aad ku sugan tahay, meel kasta oo aad booqatay iyo cid kasta oo aad kulan la yeelatay ama aad la hadashay. Softwareka Pegasus waxa uu sidoo kale u weerari karaa taleefankaaga qaab loo yaqaano unuglaanta ama waxa lagu magacaabo zero click, oo macnaheedu yahay adigoo link iyo waxbaan ku dhufan in la helayo xogtaada. Si kooban waxa lagu soo dirayaa fariin oo keliya, fariinta taabo ama ha taaban waxa la helayaa xogtaada. Unuglaanshaha noocaana weli ma ay ogaanin shirkadaha soo saara taleefanada ama mobilada soo saara, mana garanayaan meesha laga soo weerari karo mobilada. Softwareka Pegasus waa qalab wax lagu basaaso ama wax lagu jabsado, hacking software oo spyware oo aad u khatar badan. Waxaa sameeyay soo saaray wadamada dunida, ka iibiyay shirkad laga leeyahay dalka Israa'iil oo la yiraahdo NSO Group. Softwareka Pegasus wuxuu awood u leeyahay inuu dhexgalo billions taleefano ah oo dunida ku baasan oo ku shaqeeya nidaamka iOS ama Android operating system. Softwareka Pegasus waxa lagu basaasay ama taleefanadooda lagu jabsaday dad badan oo ay ka mid yihiin boqorro, madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal, looyaro, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqa aadamaha iyo wixii la midkaaba. Waxaa ka mid ah madaxweynaha Faransiiska, madaxweynaha South Africa, madaxweynaha Ciraaq, boqorka Morocco, ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo qaar kaloo badan. Hay-adaha warbaahineed ee arrinta dabagalay waxay xaqiijiyeen wadamo 10 ah oo adeegsada barnaamijkan wax lagu basaaso ee laga leeyahay dalka Israa'iil. Wadamada waxaa ka mid ah Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Mexico, Morocco iyo kuwii kale la midka ah. barnaamijka Pegasus ee wax lagu basaaso ama wax lagu jabsado waa qalabkii lagu basaasay ee lagu shirqoolay suxufigii caanka ahaa ee Jamal Khashoggi. taariikhdu markay ahayd 2 Oktoobar 2018 lagu dilay laguna jarjaray magaalada Istanbul ee Turkiga. ugu dambeyn daawade ma isleedahay waad ilaalin kartaa amniga taleefankaaga? fadlan hoos nagu reeb qaybta kommentiga, muuqaalkana si share garay, like na saar. mahadsanidin. Audio Jungle.